السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميل والبوات جوكتان وعبد محمود قلا يا برنامج كيدين كي ما يجري معهد كوالد نمو ولا لي البرنامج كما أنت واحد نقصه قاعدين على بقى الريموت ومدة هراء تهي كبدا ليرا هذا بلان عثمان وبريهان أرمي هذا برها بالشدة اللوجه اللي بلان عثمان oo gabar ku nool wadan kamid ah wadamada Scandinavian-ka gabar Soomaaliyeed halka ku dhalato ku kortay waxa weeye gabar aad u firfircoon oo ka shaqeysa xagga ma garanaysa warbaahinta dadka wargeysyada wax ku qora weeye sida la sheegay waxaana weeye qof jecel baa la yiri inay ma garanaysa la dagaalanto midabta koorka iyo cadaalad darrada iyo arrimaha bulshada ku ah dadka ma garanaysa laga tirada badan yahay qofku markuu hawlahaas oo kala galo waxa shaki ku jirin inuu cadow badan yeelanayo oo dhibaato badan uu la kulmayo marka anigu maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo nolosheeda iyadu waxay samaysay waxa lagu eedeynayo waxa anigu shaqaday maaha muhiimadna ay ma leh laakiin sida inagu aynu uga falcelinay markii ay dhibaatadu la kulantay ayaan rabaa inaan wax yar ka iraado horta qofku markuu arrimaha ku jiro shaki male in maaragta cadow badan uu yeelanayo waxaana muuqata bilan inay cadow yeelatay cadowgaas ugu dambeyntii isku dayay inay dhibaato u geystaan marka haddaba arrimuhu dibadda u soo baxeen oo in bilan la dhibaateeyay ay soo baxday dadkii Soomaaliyeed waxaad moodaa inta badan in yacni naxariistii iyo kaalmadii iyo soo dhaweyntii iyo la safashadii iyo taageeradii ay u baahnayd inaan loo muujin wax qaar badan wiirsi iyo magaciisi iyo qofkii caynka waxyaabo aan loo baahnayn ayay ma garanaysaa yiraahdeen runtii aad bay ii dhibsatay arrintaasi waqtigaas oo kala maaha waqtiga qofka lagu digto ama la isku dayo in maaragtay la eedeeyo ma aha waqtigaas kale qofku wuxuu taagan yahay meel adag dadkiisuna waxa la rabaa inay la saftaan oo taageero u muujiyaan oo naxariis u muujiyaan oo soo dhaweyn u muujiyaan waxa laga yaabaa qofku haddii xataa marka hore aad ku eedeynayso lahayd inuu ama bulshadiisa ka baxay ama caynka waxa laga yaabaa markuu marxaladaas kala galo inay noqoto turning point ama wax dib u soo celiya oo runtii bedesha ma garanaysaa sidoo wax u arko dhan oo dadkiisa ku soo noqdo oo uu qabsado dadkiisa ayaa laga yaabaa hadday dadku markaas soo dhaweeyaan oo u muujiyaan naxariistaasna arrintaas way sii xoogoobaysaa qofkaasina sidaas uu magaranaysaa dadkiisii ugu soo dhawaanaya oo magaranaysaa isbedel weyn oo positive ayaa ku imanaya laakiin markii dhaleecayn iyo eedayn iyo waxa laga horgeeyo waxay noqonaysaa qofkii waa sii fogaanaya inaynu wax sii fogeynana dani inooguma jirto waliba waxa laga maarmaana dadkeena wax bartay oo kartida leh inaynu soo dhaweyno oo magaranaysaa talooyinkooda raacno oo ay runtii inay hormuud noqdaan la aqbalo marka sida qof kartida leh sida bilan oo kale bulshadeenu waa u baahan tahay bulshadeenu aad bay ugu baahan tahay marka qofkaas oo kale inuu inagu dhex jiro inala joogo inaga mid ahaado oo ma garanaysaa wax badan buu ogyahay wax badan buu inaga difaaci karaa inooga digi karaa waa laga maarmaan marka haddii aynu si xun uga falcelino ama si negative ama si aan habboonayn ama cadowtinimo loo muujiyo waxa laga yaabaa qofkii inuu inaga sii fogaado oo wixii faa'iido ama iyadu ay heli lahayd ama bulshadu ka heli lahayd meeshii laga waayo anu arrintaas waxay sabab inoogu tahay oo markii qofku dhibaataysan yahay aynu ugu digano ama aynu u sii waxayno runtii Soomaaliya iima muuqato waa dhaqan loo baahan yahay inaanu ka baxno oo qofku markuu dhibaataysan yahay waxay rabtaa ha noqotee at least bini aadanimo iyo taageero loo muujiyo haddaadan wax u geysan karin oo waxtar u geysan karin afkaaga ka hayso isaga aamus faraha ka qaad iyagii ilaahood waxyaabaha dadka aynu u tirinayno maartay haddii qof xagga diinta iyo war iyagii ilaahood baa isle adigu haddaad u nasteexayn karto u nasteexa laakiin adiga waxay kaa mudan yihiin inaad ammaan geliso gabadha bilan waxaan qabaa in la soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed qaar badan waa soo dhaweeyeen laakiin qaar kale badanna runtii siyaabo xun bay uga falceliyeen oo aan habboonayn waxaa la doonayaa in la soo dhaweeyo taageero loo muujiyo lala safto waxa laga yaabaa dagaalkay ku jirtaa inaan weli dhammaanin وهاوشانو أي سي سocon doonto
marka waxaa la doonayaa inaad digniinta qabtaan oo aad dadkiina daba istaagtaan oo difaacdaan. arrintaas waa midda labaad waa arrin maalin dhow tweet uu soo qoray nin la yiraahdo Dr. Faqi Ali oo ka ahaan jiray daljira ka ahaan jiray ama ambassadorka Soomaalida u fadhiya midowga Yurub ahaan jiray. Dr. Faqi wuxuu yiri markuu halkaa joogay ayaa qoys Soomaaliyeed u yimaadeen wiilkooda oo Denmark lagu hayo meelaha dadka maskaxda looga jira ama caafimaadka dhimirka lagu hayo ay muddo badan ku jiray ayay doonayeen inay wiilkooda maaragtay ay hantaan oo maaragtay ay arrimihiisa ay lug ku yeeshaan. arrinta waa loo diidanaa malaha wiilku waa taqaanaan reer galbeedku si u dhaqmaane waa qaangaar iyo caynka iyo waxaasa lagula warwareegay. adigu wuxuu sameeyay Dr. Faqi sidoo noo sheegay dadaallo badan laakiin kuma guuleysanin. waxa hadaba meesha ku jira walaalayaal arrintu markay saas oo kala tahay oo ama isbitaalada ama meelo kale ay dhibaatooyin caynkaas oo kale aad kala kulanto waxa kaliya oo arrimaha lagu xallin karaa oo aad jawaabaha aad doonayso aad ku heli kartaa waa adoo looyar u taga ama dadka garyaqaan adoo u taga way oo kireysto lacag siiya oo yiraahdo hawshayda wad. hadduu looyar meesha soo galo runtii waa adag tahay in ma garanaysaa wax la qariyo ama wax la diido ama aan jawaab lagu siin waa adkaanaysaa. waa sharciga weyn nimankaas sharciga matalaan sharci bayna ku shaqeeyaan. marka waxa laga yaabaa reerka wiilka dhalay Dr. Faqi uu ka hadlay inaanay ama baraaruga qabin oo arrimahaas aan ogeyn xagga sharciga ama dhaqaalihiiba ay maaragtay lawyer siin lahaayeen oo ku kireysan lahaayeen inaanay gacanta ugu jirin. waxaa marka laga maarmaana dadka Soomaaliyeed oo arrimaha xogogaalka u ah marka arrimahaas oo kale yimaadaan inay dadkooda u iftiimiyaan waxa loo baahan yahay in la sameeyo waxa ma garanaysaa la gudboon inay sameeyaan sida ugu habboon oo dhibaatooyinka ay ma garanaysaa gacan ma garanaysaa ay guuluga gaari karaan waa laga maarmaan. taasina waxa ma garanaysaa lama huraan ka dhigaysa in bulshadu isku xiraato ayay lama huraan ka dhigaysa. haddaan bulshadu isku xirayn oo bulshada hoggaan lahayn waxa weeye wax badan ma hagaagayaan. waana sababta mar walba aan ugu celceliyo inaynu u baahannahay midnimo dadka Soomaaliyeed qurbaha jooga midnimo xagga qoyska ah iyo mid ka sareysa oo bulshada ah inaynu u baahannahay waa laga maarmaan. waxa kaloo muhiim ah dadka Soomaaliyeed oo ama looyarada ah ama dhakhaatiirta ah ama macallimiinta ah inay dadkooda siiyaan xogta ay u baahan yihiin inay siiyaan. ma adka maanta xogta in la isa siiyo halkan aan idin kala hadli karo kale ayaa laga hadli karaa ama meesha aad joogto baad maaragtay waxaa la furi karaa Facebook group ama wax aynkaas. ma adka in xogta marka la isa siiyo lawyerkii oo kale dadka wuxuu u sheegayaa waxay xaq u leeyihiin waxyaabaha aan xaq u lahayn waxyaabaha carruurtu dambiyada ku gali karaan waxyaabaha halista keeni kara waxaasoo digniinahaasoo dhan ayuu siinayaa. dadkii wacyigelin bay u noqonaysaa. macallimiintu waxay u sheegayaan dhibaatooyinka iskuulada ka jira iyo waalidiintu siday arrimaha ula tacaali lahaayeen iyo siday u ogaan lahaayeen iyo siday carruurtooda maaragtay u sheegi lahaayeen siday u maareyn lahaayeen waxaasoo dhan bay la wadaagayaan. dhakhtarku sidoo kale social workerku sidoo kale cid walba sidaas oo kale. laakiin waxaa laga maarmaana in midnimo jirto oo bulsho walba oo Soomaaliyeed meeshay joogto dadkooda hormuudka ay tilaabooyinka qaadaan dadkuna ay dadkooda daba istaagaan oo ku kalsoonaadaan oo waxay u sheegayaan oo ku dhiirigelinayaan ay qaataan. walaalayaal haddaynu isku duubnida iyo midnimada muujino gudaha iyo dibadba waa guuleysanaynaa. wixii kaloo dhan waxay noqonayaan runtii waxaan ina gargaarayn ama ma garanaysaa ina saacideyn. maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa. cabdi maxamuud qalac barnaamijkeedii in ka iman jiray macadka waalidnimo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.